waa shaqo adag balse wuu qabtaa waa hawl ay xitaa ku adag tahay inay qabtaan kuwa uu lixaadkoodu dhan yahay daadir wuxuu sannado badan xirfaddan samaynta mootooyinka ka biilayay laba xaas oo u dhaxa iyo ubadkooda waa daadir cabdulqaadir ninkan dhallinyarada ah oo ku jira waajibaadkiisa shaqo ee maalinlaha ah daadir waxa uu dirayaa oo uu qirayaa in lixaadka oo keliya aan naafo laga noqon balse curyaannimada dhabtaa ay tahay qofku waxa uu aamino waxa uu sidoo kale uu fariin u yahay dhallinyaro badan oo lixaadkooda uu alla dhammaystiray haddana cududaar ka dhigta waxyaabo aan markaasi suurtagal ahayn iyo waddanka shaqa kama jirto marka waxaan rabnaa inaan kala sheekaysano daadir nolol maalmeedkiisa iyo isagoo oo ma aragtay runtii aad u jeedaan naafa ah in haddana uu hayo mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhibta badan oo ah in bir laga shaqeeyo qofka oo mootada ka ilaawda soo wacda markii fadhigiisa ugu taga dibaa ka qaldan dibka oo saacad dibka waxaan ka qaataa qofka lugiis qabo $15 $10 kii oo naxariisanayo laakiin ninka uryaankan mootadiisna asiin markay leeysanta oo soo waca oo taga asiina waxa ii garto aan ka qaataa doowaxiin waa iska dhaafaa anigi asisku hal inta badan laakiin curyaaminta u shaqeysaa Soomaaliya curyaaminta oo shaqeeya badanaa curyaaminta oo shaqeeya shaqadan goorma bilow shaqadan barashadeeda iyo goorma bilow shaqadeeda barashada dadka iyo motorka alxamdulillah shaqadeeda barashada dadka iyo motorka mafaham alxamdulillah curyaaminta aan masaakiinta iska shaqeysto dadka lugood qaban wixii $15 aan ka qaato waxaas magaalada iskaga noolaa alxamdulillah marka midii kale waxaan qabaa labada xaasna waxay kala dhaleen labadood oo isku dar tadaba caruur ay joogto alxamdulillah adduunka saasan ku joognaa marka qof kasta marka mootada soo laado way soo bacdaa qoyskooda uu taga kii garaashka uu maadan waa ka garaashka uu sameeyna aniga shaqeynaa ilmihiga noloshadooda shaqada aniga shaqeynaa loo moodsanay waxbarashada kulli shaqadeeda lan ku dhigtaa qof aniga oo maanta oo aan toogsado oo ma jirto shaqadeeda dhididka balaanka aan soo dhigay aan ku mootiyaa cayaal ayuub abshir oo ka mid ah dhalinyarada naafada ee Muqdisho iyo daadir waa saaxiibo isaga oo loo cilad bixinaya mootadiisan ayaan goobta kula kulmay saaxiibaan ku shaqo leh farsamada mootada waa nin saaxiibaan oo ku naafoobay dabeesha marka asxaab ayaan ahay wuxuu u sameeyay dadka naafada mootooyinka ka halaaway waa nin shaqaysto dacmiisa ku shaqaysto maadaama lugihiisa leeyahay duri dacan ayuu u yahay dacmuhu ku shaqaysto maxamed aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aaminsan in ay wanaagsan tahay dhiirigelinta loo sameynayo dadka qaba baahiyaha gaarka ah arrintan naafada waxa weeyaan waa arrin u baahan in la taageero anoo ku hadlay afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan maaragtay soo dhaweynaynaa barnaamijyadan hadda aad duubaysaan bulshada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa haday tahay jaaliyad haday tahay maamulada dalka ka jiro in la garab qabto dhalinyarada saan oo kale oo howlaha fiican hayo oo ummadda maaragtay waxa weeyaan ummadooda ka mid ka ah ee muujinaya kartida isla markaana shaqaysanaya iyagoo maaragtay disability ah marka waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan waxa weeyaan in la caawiyo haday tahay dhinac waxbarasho haday tahay dhinac ganacsi haday tahay dhinac maaragtay shaqooyinka kale waa soo dhaweynaynaa barnaamijkaas aad baan u soo dhaweynaynaa maxamuud soo faysane Shabeelle TV Muqdisho